بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دانسون تي في قلبت وحوي إذا هي برانيس كسابسن دورشوين كسومالي كدعيا وحنا آخرين دونا أنا سعيد داهر عبد الله موسى دمبل. إن مدن اللي يمروين ملك استوى شوكتان دافع عالمك مدن الصوماليات سيقولين الإسلامية. إن سلاد أكتين أما إن الله وصعنه وحامالك بالرئة أو شنية طبنك bisha May ka qabsoomi doona magaalada Muqdisho hadii Ilaahay idmo ama loo balansan yahay doorashadii madaxtinimada Soomaaliya. Sidaan ognahay madax badan oo Soomaaliyeed oo xil raadisa ayaa u sharaxan kursiga ugu sareeya dalkan Soomaaliya. Sharaxinta tirada badan ee afartaneeyaha gaaraysa waxa mid kastaba uu doonayaa sidii uu hanan lahaa kursiga ugu sareeya Soomaaliya. Waxaan rabaa 4 qodob ilaa 5 qodob ilaa 3 qodob inta ila gaarto inaan ku soo koobo warkayga. Sida aan la wada soconno Soomaaliya oo ka dhagsan tahay Soomaaliya xukuumad kasta oo timaaday waqtiga umba ka dhamaada ayadoo waxa qaban markaan ku leeyahay waxa ma qaban dabcan waxa loo ballamay intaas oo sano dawladii soo kala dambeeyay midoona ma qaban. waxaan ognahay in dawlad kasta iyadoo wixii lagu heshiiyay qaban in waqti ka dhamaado. horta marka hore waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inay ogaato oo ay kula xisaabtanto madaxda la dooran doono in waxyaalaha ugu waaweyn ama rukumada ugu waaweyn ee laga doonayo marka hore inay fuliyaan inay ku cadaadiyaan sidii loo fulin lahaa. waxaad ogtiin mudanayaal iyo marwooyin labadii dawladood walba u dambeeyay khaasatan dawladda Xasan Sheekh uu hogaaminayay iyo dawladda Maxamed Cabdullaahi uu hogaaminayay inay dambiye waaweyn dalkan ka galeen. dambiye waaweyn bay ka galeen hadday tahay dhinaca waxqabadka waxyaalihii laga sugayay way ku wada fashilmeen. sidoo kalena dambiye ayay ka galeen wadanka midba ay si khaldan ama nooc kala ah oo ay tan kala sameyn ay ugu xadgudubtay. dawladda Xasan Sheekh wadanka dagaalana waa ka riday sida la socono corruption aan weligiis la maqalla way ku samaysay. runtii waxaan dhihi karaa yani aad iyo aad ayaa maamulkaasi lugta u jiiday ummadii Soomaaliyeed. maamulkii farmaajo wuxuu bilaabay taamid ka daran, wuxuu bilaabay caburus shacab, wuxuu bilaabay caburus siyaasadeed, wuxuu bilaabay inuu awoodda meesha cidda uu rabo asagu geysto, ciddii hadal ku maqla waayadina uu xabad la aado oo waxa weeye oo ciidan dusha ka marayo sidii ka dhacday magaalada Baydhabo, sidii ka dhacday magaalada Dhuusamareeb, sidii ka dhacday magaalada Jowhar. wayna la wada soconaa intii kale uu gaari waayana wuxuu ku Jubbaland kale wuxuu saaray xisaar cunaqabatay Musa iyadoo waliba xilliga ugu adkayd ee COVID-19 wadanka jiro. Puntland oo kale dhaqaale la geliyay tiro badan oo lagu khalkhal geliyay amnigeedii la dabcay in lagu baabiyo oo dadka la soo horkeeno. intaas iyo waxyaalood team Muqdisho ka dhacday aad ogeydeen oo nin Soomaaliyeed oo wasiir ahaan jiray xildhibaanna markaa aan u maleynayo gurigiisa intii la tago in askartiisii kabaha lagu duugay say gacan laga jabiyo. sidoo kale in hogaamiyaasha soo maray wadankan in diyaaradaha loo diido, in dadka shacab siyaasiyiin diyaarada loo diido, in yani qaabka noocaas oo aan dhihi karo waa qaab ka fog dawladnimada xukuumaddaasuna ay ku dhaqaaqday oo waxa weeye ay samaysay. haddaba mid kasta markaan intaa uga baxano waxay samaysay hal qodob ay ka wada san yihiin baa marka jirta marka labadoodu oo maxay tahay dalkan sidaan ognahay dastuurkiisi waa qabiyo. dalla haduusan dastuur lahayn dhibaato kama baxo. sidaan ognahay dalkan lacag ma leh, dal haduusan lacag lahayn horumar ma gaari karo, dadkiisuna amni
dhaqaale ileen amnigu dhaqaalahaasaa ka qayb qaata marka dhaqaaluhu la waayo ileen lacagaadan lahayn jeebkuu buuxin mayso lacagaadan lahayn meel kasta lama markin lacagaadan lahayn qof kastoo Soomaaliya ma qaadan karo waa muhiim shilin Soomaaliyeed in la helo oo lacag Soomaaliya soo daabaco way ku wada guul daraysteen labada qodob ay sheegay waxay kaloo ku guul daraysteen way ka sinaayeen in ciidan qaran oo mid ah gees ilaa gees laga soo qoro sida wadankan amnigiisa loo sugo nin kasta waxoogaa uu samaystay markaa asagu meeluhu uu doonayay uu kala yimaado qodobka ugu dambeeya oo aan isleeyahay waa qodobka ugu muhiimsan arrintan hadda afarta qodob idin sheegay waa arrintii dib u heshiisiinta waxaan ognahay dadkeenu 91 ayuu isdilay iyo wixii ka dambeeyay isleenayay wuxuu isu leenayay xaafad xaafad wuxuu isu leenayay qabiil qabiil wuxuu isu leenayay jifo jifo wuxuu isu leenayay koox koox ilaa hadda ummad Soomaaliyeed oo intay gogol u dhigtay tiri maxaa dalka Soomaaliyeed u dana iyo maxaa dadkiisa u dana maxaa shalay naga khaldamay maxaa rabnaa inaan maanta sameeyno ilaa hadda gogosha lama dhigin waxay ka mid ahayd ballanqaadyadii iyo arrimihii laga rabay ee hor yaalay labada oday aan hadda soo sheegay inay fuliyaan afarta qodobba way ku wada fashilmeen sida runta waaye marka Soomaalidu dawlad noocay doonaysaa Soomaalidu ma rabto dawlad corruption oo dhaqaalaheeda urursata Soomaalidu ma rabto dawlad kale talisa oo nin dictator oo hogaamiyo Soomaalidu ma rabto dad kooxo gooni intii la abaabulo oo la soo xusho in xukunka meel kasta laga geeyo qof dhalinyaro ah xilka qaban kara qof weyn baa qaban kara bini'aadankuna sideedaba koox kaliya wax ma qabato haddii hadda la dhalinyarada kaliya waxa loo dhibo dalku wax badan baa ka khasaaraya oo ka baaba'aya sababtoo waxa weeye aqoontu waxaa ka sii adag waxa la yiraahdo waayo aragnimada haddaad aqoon leedahay laakiin aadan waayo aragnimo lahayn shaqadan aad haysid iyo xafiiskan waxaa laga yaabaa inay muddo kugu qaadato inaad fahantid waxay tahay marka dadkii waaweynaa oo aqoonta lahaa oo aragtidaas noocaas lahaa oo ay aragnimada waa loo baahan dawladda inay qayb ka qaataan waliba qaybaha qaadanayaan muhiimka waxa weeye dhinacyada gaashaandhigga iyo arrimaha dibadda in loo dhibo waxaad arkaysaa wiil yar baa waxa loo dhibiyay arrimaha dibadda waxa loo dhibaa adduunka markaan fiirino nin waxa weeye meel kasta ka caraystay baa loo dhibaa waayo wasaaradda dhaqaaleeyo sidoo kale gaashaandhigga waxa loo dhibaa nin dee aad ogtahay xaaladiisu caraystay wiil yar yani gaashaandhig iyo lama keeno iyo taliye ciidan midna lagama dhigto يعني meelaha soo kale waxa la keenaa rag jilba culus ah waayo waa labada tiir ee wadanku waxa weeye uu ku taagan yahay arrimaha dibadda iyo gaashaandhigku waa in labadaas dad u qalma oo dad waaweyn oo jilba culus la keeno laakiin wasaaradaha kale maaliyad ha noqoto caafimaad ha noqoto waxbarasho ha noqoto waxa kale dhalinyarada loo dhibi karaa taamicnaha marka kama wado dhalinyaraduna wax ma qaban karto dadka waaweyn looma baahna maaha يعني dad isu dheelitiran inay maamulkii isceliyaan oo waxa weeye ay tirar isu noqdaan si wadanka ila wadankan madaxweyne waa magacuyaal wadanka ma maamulo wadanka dadka maamulaya oo ka shaqeynaya oo waxa weeye dadka yani wax kasta iyo meel kasta maraya waa wasiir laga soo bilaabay ilaa agaasimo way dadka noocaas ah waxa la rabaa marka in la kobciyo oo dadka xusaan laga dhigo sidoo kale in ay markasta cadahay arrinta ra'iisul wasaaraha iyo awoodiisa iyo tan madaxweynahaba inay waxa weeye la kala leexiyo oo waxa weeye 4 sano ee wadankan uu soconayo waxa weeye qalalaas dhicin oo maalinba baarlamaanka aan isla aadin sidaas oo kale weyn baarlamaanku uu noqdaa sharci soo saare oo uu soo noqon xukuumad oo uu soo noqon madaxweyne oo uu soo noqon yani siyaasi kale si dalka loo badbaadiyo oo dalka waxa weeye aan ugu turo baarlamaanka Soomaaliyeed waa sharci soo saareyaal waa hay'adda wadanka awood badan adeero hay'adiina ku ekaada hay'adiina jooga halkaas wadanka controller cid kasta oo wadanka wax soo gelinaysa iyo cid kasta oo wadanka ka baxaysa oo shirka ka qayb galaysa haday madaxweyne tahay iyo haday wasiir tahay iyo haday gaasimo tahay qofkaas markuu intuu baxo shirka soo dhamaysto ee wadanka soo laabto waa inuu baarlamaanka hor yimaado waa inuu wuxuu soo saxiixay iyo heshiis soo galay
baarlamaanka hortiisa uu ka sheegaa baarlamaanka waa inay diidaan ama ansixiyaan sidaa darteed maaha maalin kasta waxa weeye in yani wadanka qaab corruptiona oo siyaasadiisa loo isticmaalo sax ma haddaba intaas markaan kasoo tagno dowladda aan u baahannahay waa dowlad aan kaliga talis ahayn dictator hogaaminayn dadkeeda u naxda cadaalad u samaysa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ee member state-kana qolo kasta awoodeeda loo daayo iyo maamulkeeda waan ognahay dowladda dhexe 4 wasaaradood bay awood u leedahay sideeda banaanba ummadda Soomaaliyeed inay fahantaa fiican waxay 4 wasaaradood ayay dowladda dhexe si toos u maamushaa wasaaradaha kale la tashi bay ku leedahay wasaaradaha ay toos u maamusho waxa weeye arrimaha dibadda gaashaandhigga lacagta iyo migration intaa waxaan ka ahayn dowladda dhexe la tashi bay kaga leedahay waliba arrimaha lacagta iyo gaashaandhigga maamul goboleedyada way kala tashanaysaa sababtu maxay tahay ayadoo awood u leh labada wasaaradood bay misana ayadoo kala tashanaysaa waayo ayada u baahan maxaa looga baahan yahay lacagtu xagee ka imaanaysaa lacagtu soo dalka ma imaanayso dalka yaa xukuma dowlad goboleedaha xukuma soo lagama rabo ayagii aeroboorradii iyo dekedihii iyo cashuurihii kale aqal ayaga laga rabaa haddii wax kale inoo soo siyaadaan oo khayraad kale ah kama si fiicanba sidoo kale ciidamada xaggee laga soo qoraya ayaga laga soo qoraya ciidan nidaamsan aan mooryaan iyo jiri ahayne dhalinyaro wax baratay oo aqoon-yahana oo waxa weeye at least dugsiga dhexe dugsiga sare dhamaysay in waxa weeye askar laga dhigo oo waxa weeye dad wax fahmaya oo nolosha fahmaya laakiin markii la keenay askari aan wax fahmayn ee qori kale lagu tababaray nolosha aan aqoon qori ka aaminsan waa wixii shalay inuu ku dhacay weeye waagi hore waxa la yiri askarta waxa lagu jiray dheerdheeraan iyo xoog hadda aan noogu soo qorinina dad wax fahmay oo wax akhrin kara oo waxa weeye yani iskuulara keena meesha saas bin dalkan ku badbaadi karaa marka uma baahnin dictator iyo wax wado waxaan rabnaa dowladda imaanaysa dowlad hambala oo waxa weeye dadka xaq dhowrta oo xaqooda siisa ummadda Soomaaliyeed isku wada dowlad goboleed la shaqeysa inay noqoto waxaan ku soo gaabinayaa qodobka ugu dambeeyaan ka dhigaya doorashada dhacaysa Brito 15 dabcan rag baa sugu imaanaya ragga sugu imaanayana waa u jeedaan dabcan waa cad yihiin waxaan filayaa kii guuleysta intiina kaloy u hambaliyeeya soo dhaweeya waan fahansanayo mar madaxweyne wadan qabtay soo ugu soo laabtaa waa adagta haddii nin ku soo laabanayo aadan cabdullaahi cismaan ilaahay ha u naxariistee baa ku soo laaban lahaa aan aaminsanahay inuu ahaa shaqsigii ugu mudnaa Soomaali waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh